السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad ardayay weli waxaan ku sii guda jirnaa casharadeenii imtixaanaha ahaa ee computer basic. casharkan maanta waxa uu ku saabsanaan doonaa hadduu ila yiraahdo muuska iyo waxyaabo la xiriiro sidoo kale wordpad-ka iyo qaar kale badan ayaan ku soo qaadan doonaa insha Allah taala. haddaba ku soo dhawaada muuqaalka. isa soo noqod wanaagsan. magacaygu waa Cabdi Xuseen Cabdi Bulsho. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay halkan aan soo booqatay ilowin inaad janaalkan subscribe saartid isla markaana gambaleelka afuratid sida mar walba u heshid muuqaalada aan soo gelino. sidoo kale u share garee saaxiibadaada sidii ayagana muuqaalkan uga faa'iideystaan. okay, marka ugu horeysa maanta waxaan rabnaa inaan shaqada muuskan u jeedin inaan xawaarihiisa nooca uu eegyahay iyo sidoo kale inaan bedelno qaybeshinkiisa left click iyo right click ina wax ka bedelno. marka ugu horeysa waxaan tageynaa meesha ay ku qoran tahay control panel. haddii aad ka weyso waxay tagaysaa meeshan waxay ku qoraysaa control. ma ku qortidna kadibna waxaad dhigi doontaa control panel. inta ma ka dhaadid haddii ay sidan ku tahay oo okay, haddii ku ahayn oo saan camal ay ku saaran tahay fadlan waxaa samaysaa qaybtan fur kadibna waxaa dhahdaa large icons. kadibna waxaa ka doorataa qaybtan ay ku qoran tahay mouse. marka mouse aad ku dhufatid waa kana halkan hadda saa u jeedid left click ayaa hadda calaamadeysan oo haddii left click aan ka bedelo oo halkan aan u bedelo right click meeshii aan right click aan optionada saan oo kale u raadinayay hadda right click markaa dhaa saan waa sooma. okay, left click-na waa inaa shay click ku dhaado furti sooma. marka hadda inta si aan uga bedelno oo left click oo right click aan meeshii left click u isticmaalno wax kale ma sameynayno. qaybtan ayaa waxaan saareynaa jaaga kadibna saa u jeedid waxaa bedelmay calaamadaas. hadda left click ayaan apply ku dhahayaa igama yeelayo sababtoo left click waa ka bedelay. laakiin right click aan hadda optionada saan ugu raadin jiray hadda ayadaana u isticmaalayaa inaan click ku dhaho. okay, click aan ku dhahay kadibna okay aan dhahay. okay, hadda halkan markaan imaado right click hadaan dhaho igama yeeli doono oo sababtoo waa kala bedelay. laakiin left click markaan isticmaalo option siin doonaa. okay, okay, right click waxaa lagu talagalay inaad shayga hadda right click inaad shayga saamka dhadido kale shayga aad dooranayso kale inaad right click booski ahaa left click ina u bedelno. left click booski ahaan ina right click u bedelno. hadda click right kan isticmaalena saa u jeedid waa weyneyni. laakiin hadda right click iyo ma yeelayo waa ina left click aan right click booskeeda isticmaalo kadibna aan meesheeda ku celiyo kadibna halka aan oo joogo right click waa ina isticmaalo si ay left click booskeeda ugu shaqeyso. hadda u jeedid oo yaraado. okay, aan ku laabto meeshaydii anoo right click okay ku dhahayo sababtoo waa soo bedelo waa inaan mar kale sida saxdeed aan ku soo celiyo waay. halka hadana right click aan click ku dhahayo sababtoo left click waa ka bedelay. hadda halkaan aan tagaya right click ayaan click ku dhahayo hadda waa ka qaaday left click hadda isticmaalaya kadibna okay aan leeyahay. muuska hadda u jeedaa bidix iyo midigba waa kala bedeli kartaa. haddana aan ku laabto meeshaydii waxaan rabaa inaan idin tuso waxaan tagaynaa qaybtan pointerska. marka pointerska tago hadda muuskeyga noocaas u eegyahay. laakiin haddii aan browska aan furo oo aan doorto noocan questionka wata aan doorto kadibna open aan dhaho oo noocan questionka wata aan doorto kadibna open aan dhaho kadibna apply aan dhaho kadibna aan dhaho okay, muuskeygi noociisu wuu isbedelay oo waxaa la socoto hadda question mark ayaa la socoto. okay, qaabkaana waa kasoo bedeli kartaa. hadda meeshii aan ku laabanaya si aan isaga soo bedelo kadibna waxaan tagayaa qaybtan ay ku qoran tahay pointer kadibna halkaan aan furayaa kadibna waxaan ka dooranayaa arrowgan. arrowga xataa midna waa yartahay midna waa weyn tahay. tu weyn haddaad rabto inaad dooratid tan dooro kadibna waxaa dhahdaa open kadibna waxaa dhahdaa apply kadibna waxaa dhahdaa okay. hadda waxaan doortay arrow xoogaa noocii hore ka weyn ayaan doortay. okay, good, no problem. waxaa kaloo haddana aan ka qaban karaa shaqadan kaloo muuska qaban karo waxay tahay muuska tag keli ku dheh kadibna waxaa tagtaa mouse option ka tag. haddii aan hadda qaybtan meesha u dambeysa geeyo xawaaraha muuskeyga waa ziyaadaya kadibna waxaan leeyahay apply kadibna waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay. hadda xawaaraha muuskeyga si zaa'ida ayuu u shaqeyn doonaa oo hadda mararka qaar ma aha sidii. laakiin haddii aan rabo inaan slow ka dhigano waa sameyn karaa. waxaan tagayaa qaybta muuska kadibna waxaan tagayaa pointer optionka kadibna qaybtan ayaan meesha 0 geynaya. hadda saa u jeedid culays zaa'id waaye meel uu aadaba ma leh waa kaasa saas u culis yahay. marka meelaha dhaxoo kale iska geey
meelaha dhexoo kale iska key kadibna apply dheh kadibna okay dheh okay muuskana qaabkaasoo kale waa in ayadana xawaarihiisa iyo qaabka wax u rabtid u bedeshid sidoo kale waxaan rabaa inaan kula wadaago hadduu ilaa yiraahdo sidoo kale windowgan wuxuu leeyahay calculator wax la dhaho inta waxaan ku qoreynaa call aan ku qoreynaa waa kana kadibna click ku dheh okay oo weynaysan kartaa hadaaratane waa iska yaraysan kartaa okay hadda waa kana waxaan leeyahay 7 lagu daray 8 equal 15 okay laga jaray 9 6 calculator kan waxa rabta ayaa ku xisaabtan kartaa oo halkan ayaa waxa rabto kaga xisaabtan kartaa okay good 2 eber 5 okay qaabkaas oo kale ayaa wax soo diri kartaa 3 lagu daray 3 waa 6 okay taasna waa calculatorka computerka wuxuu leeyahay sidoo kale qaybta window waxay leedahay inta aan la gaarin office-yada waxay leedahay qayb la dhaho wordpad inta waxa ku qoraysaa wordpad waa kana kadibna kaliya ayaa ku dhaysaa halkan waa meesha aad wax ku qori kartid hadda waa kana alxamdulillah ayaa ku qoray okay waxaan ku qoray subhanallah okay qaabkaas oo kale wax u qortid ku soo dhawow halkan waa akademiyada bulsho okay qaabkan kale oo qortid waa kaasa wordpad hadaartid inaad weynaysid dooro kadibna waxa dhahdaa qaybta fur kadibna weynay bold ka dhig itaali ka dhig hadaartid underline xariiq okay inta fur colorkaas macnaha maxal jiri ku wada flash garay no color ka dhig hadaartid okay dhaxda gees mari okay inta arta sameyn kartaa farta bedel inta ka qabo farta nooc aragtid ka dhigo intaana waa sameyn kartaa sawir soo gali sida caadiga ahayd okay intaas iyo in ka badan ba ayadana waa sameyn kartaa okay intaas in ka badan ba waa sameyn kartaa okay maxaan kaloo hadda sameynaa marka control z aan dhahno wordpad-kan waa inuu qaabkan kale kugu shaqeeyo hadda waxa qoro farti waxa saaran saddexdan underline italic iyo bold oo jeedamo okay hadda hadii aan ka rabo inaan ka qaado underline-ka soo jeedid oo ka qaadmay waa kaas hadda waxa xariiq gadaalka ma marayo okay hadda bold-ga aan ka qaado aydan intaan doorto hadda bold ka qaadan wuxuu noqonayaa italic bis okay hadda dan dhaxda geeyo oo sameyn karaa waxaan geey karaa geeska waxaan geey karaa right-ka ama dhanka bidiga dhanka bidixna waa geey karaa okay okay intaasna waa wordpad-ka ina isticmaali kartid ayadana sidoo kale inta daa furtid waxa ku soo darsan kartaa date-ka maanta ayaa ku soo darsan kartaa waa kaasa hadda waxa ku soo darsay date-ka maanta enter leh date-ka tagaysa kadibna 27 bisha 12 ayaa ku soo darsanaysa waa kaasa isla dooro italic ka qaad okay kadibna bold caadi ka dhigo good hal far wada si inta fur kadibna farta wada qaado qaabkaas oo kale ayadana waa u diyaari kartaa marka isticmaalaysid wordpad-ka okay marka hadii aad copy dooro right click dheh copy dheh kadibna enter dheh kadibna right click dheh paste dheh amaba dooro control c dheh kadibna inta imaw enter dheh control v dheh okay save gareynaya sida caadiga waxa tagaysaa qaybtan file ay ku qoran tahay kadibna waxa dhigi kartaa save as kadibna meesha ku save gareyn lahayd desktop miya download miya document miya inta tagaysaa pictures ma ku save gareyn rabtaa kadibna inta imaw file name-kan waxa ku qortaa magaca document ama doc1 ku qor inta waxba ka bedelin kadibna save dheh hadii hadda inta baxo aan qaybta pictures-ka aan tago waxaan ku arki doonaa doc1 waa kana okay in habkaas oo kale ayadana aad wax u save gareysid waa iska caadi ama sidoo kale aad u koobiyeysid waxaan rajeynayaa casharkan inuu cashar faa'iido leh oo ahaa wax badan aad ka faa'iideen intaas ayaan ku soo gabagabeynaa casharkeena tan inta kulmi doono casharadeenna xiga waxaa idinku dhaafayaa nabadiina